السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله خير كجعل صدر كيسين ولا الكين علي تيك توك عنو كي حالن وكجري ما شاء الله تبارك الله دد أهل الخير يا أو طلقلي ولا الله مصيبوين ككل عين إنا لله وإنا إليه راجعون الله ينهي وحي أرضا ما أنت بكارا صوبوغني وجدين عليه إن شاء الله maam ahlul khayr ayaa soo dhiibatay joogta dalka Mareykanka diiday magaceeda khayr Allah si way la socotaa qof kale ahlul khayr ah muraad leh 54 qof muraad leh waa asagna insha Allah labadaas $100 walaalahayna musiibooyinka ku dhaceen in labadaas $100 ka badan insha Allah taala dad badan waxa jirno u xiran gudoomiye Baazi Nuur Xuseen حسن محمد سيد حسن جنجا جيلاني أبو بكر شيخ بن شيخ مع فاطمة مع فرطون معلم محمد أنت نوحرن تي في أو كربا حميش كحرن ما أنتو عن سوق رسيني ولا عليه هنا مصيبوين كل عين لعقنا $100 ولا كينا حالة تيك توك لايف وكجر وقت بدن وقفاتي ما شاء الله أنا جن واشر قرينا الحمد لله إلهي خيرها كديجو $100 أنت صبح ستين مراد كذا الله وساله حتى ساسي تأمير دي سانك صوت من الشق وجوبي على أدي هذا ودلالة حالة وقت بدن وقفاتي تيك توك وأنا ما شاء الله على كسودو تي في أو كربا حميش ما أنت كسبوا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله أما بعد مركو هري وحن سلامة دمان أمد إسلام كميلو بالدنيا كجوان marka xigta waxaan salaamayaa walaalkeygi oo inaga socdo TV Abu Karbaaci oo maanta inaga Abu Karbaa Xamiish oo maanta inaga soo booqday isla meheradeedii Bakaaro isagoo inoo wada fariin falcelin uu ka muujinayo xalito live-ka aan ku jirnay ee aan ugu ururinay walaalaha dhibaataysan ee abaaraha saameysay walaalo fara badan ku jiray kuwa ugu saameynta badan oo kamid ah walaalkeyga qaar Allah siiyo wuu sheer gareeyay dad badan oo la xiriiri maanta wuxuu inoo keenay falcelin muuqato aad idinka baaragtaan $200 oo laba walaalo muxsiniin ah wax bixinta jecel midna Mareykan joogo labadaba Mareykanka joogo laakiin in magacyadooda la sheego way diideen sidaa awgeeda qof walba muuqaalkan uu soo gaaro oo arko muuqaalkan waxaan ka codsanayaa arinta hadda bilow tahay walaalkeeni waa qofka ugu horeeyo lacagaha ugu badan isoo gaarsiiyay dhiirigelinta in noqday maanta garbaheygana soo istaageen waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu baryayaa dadkii soo bixiyay meesha ka bixiyeen bedelkooda ka khayr badan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyo isagana juhdiga iyo dadaalku ku bixiyeen inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka abaal mariyo qof walba oo muxsin wax bixinta jecel arintan bilow waay dadka baahna u jeedaan waxyaabaha aragtay muuqaalada ka duwan oo ka dhibaato badan ka arxan xun aad arki doontaan sababtoo ah waxa jiro dad maanta biyo la'aan cunto la'aan orax roob la'aan intaba isugu darsantay marka insha Allah ta'ala yani isku gurmadno biidnillaahi ta'ala walaalkii adigoo raali insha Allah ta'ala hadda ninka xamar u fadhiya tahay dad badan waxaan la xiriiro YouTube-kii ku xiranaa jiro Facebook-kii live ku xiran markii aad ku wareejin doontaan xal live-ka markaa ku jirteen anigu waa ku jira insha Allah ta'ala walaalahayna saan u dhaadhicin insha Allah ta'ala aadi su'aashaasina u weydiisay aad u wanaagsanayd sababtoo qof walba markaas ka jaahil baxayo live-kan waxa isku awaawinay anagoo dhalinyaro ah balse arinteedu xoogeeda aniga u waday gabadha xalayta live-ka ila saarnayd ma aan qof iga faaloonayo ma aan xaaladaha ka jirta abaaraha waa qof ku dhex sugan isla meesha ka jirta Kismaayo joogta gabadhaasi iyada aragtay xaaladda iyada la socoto qaar kamid ah diriskooda dhibaataysan iyaga sheekaysay insha Allah ta'ala waxaan idin balan qaadayna Ilaahay karaal noqdo qaababkan u gudbinayno emailahan geynayno qof walba wuxuu baxsaday meesha ku baxay waa la tusin doonaa itaabsiyan Allah anaga diyaar waa Ilaahay karaal noqdo lacagta $200 oo isoo gaartay lacag kale walaalo kale soo gudbiyeen waa sheegi doona ayagana siday noogu soo gudbiyeen siday kala ahaayeen taasna diyaarana waqti walba heegana anaga walaalahayna insha Allah garabkaaga inaan soo buuxina cali haduu Ilaahay karaal noqdo idinkana aad u mahadsantihiin walaalahayga jazaakallahu khayr adigana sidoo kale dhamaantiin sidaas igu soo boqod cameraman-kan waa salaamaya deeq dayman midada kale hal mid oo idinka codsanaya hawsha wiilkan wado ee dhalinyarada ay wadaan hawl yar ma aha marka kor laga fiirinayo hawl yar loo maleeynaayo dadka qaar markay arkaan qof walba qalbigiisu wax uu ku fikiraa laakiin xaqiiqda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ogaan karo qof inuu isku xilqaamo dad baahan la caawinayo inuu qofka ay ka soo maaxato wax fudud ma aha dad meelaha kale isaga yani qabyaaladii waxyaabo kale ku bixiyo bal laakiin waxa idinka codsanayaa TikTok-giisa aan hoos idin soo dhigay ninkan iyo booqda
si markaasi waxyaabo fara badan oo idinka daahsoon idinku soo bandhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. عليكم السلام عبد الغني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan naga daawanaysaan waa samafal Abu Bakar Hamish hadaan ugu cusubta waan ku soo dhaweynaa hadaan la jirtana farxadayeen tahay maanta waxaan soo booqanay samafalahayna walaalkeena Ali aan soo booqanay insha Allah ma sha Allah in badan aad aragteen inuu ka muuqdo TikTok-yada oo nin samafal yahay oo dadka ugu arxama oo garab siiya insha Allah biidnillaahi kariim maanta waxaan soo gaarsiinay lacag dhan $200 walaalaha muxsiniinta ah oo khayrka jecel oo labadaas boqol soo dhiibteen meesha ka soo bixiyeen oo badan oo baraka leh labadaas boqol waxa loogu talagalay dadka walaalaheena oo ku dhibaataysan abaaraha ku saameeyay goboladeenan hadar dhow insha Allah biidnillaahi kariim sidoo dhaqsiya badan ilaahay hal loo gurmado hal shay shargalay sidii ku arkaan walaalo kale oo muxsiniin oo khayrka jecel insha Allah biidnillaahi kariim yeesan noqon kaliya inaad kilibkan aad daawato yeesan noqon si gaarsiyo walaalaha kaleeto hal si gaarsiyo insha Allah biidnillaahi kariim oo dhibaataysan in loo gurmado biyo la'aanta abaarta wax walba hayso hadii aad aragtin muuqaalo waa ka nixi doontaa marka insha Allah biidnillaahi kariim hawshan walaalkeen oo hayna mid hadda oo macnaha laga haray ma ah waa mid mar walba garab aan u taaganahay dadkeena walaalaheena oo dhibaataysan inaan garab isiin anaga hadaan caawino ilaahay wuu caawinaya insha Allah biidnillaahi kariim hadana waxaan ku wareejinaynaa walaalkeena Abu Bakar ان شاء الله علي ما انت برت سامنا سندعينا ان شاء الله تعالى انت سو بعث الميزان الله وصاره علي وانين دلنيره جهديgiis والله ما هليديسا كما بين حرام هذا كستبا سو عين ما انت وقتيgiisu siino خير الله سيو dadaalku haya asagana oo soo heelay ان شاء الله تعالى waa mahadsantiin idinkana sidoo kale xaqiiqatan waxaan ku soo gabagabeynayaa aad Ilaahay karaan noqdo hal kelmadaasi aniga anfici kartaa adiga ku anfici kartaa qof walba muuqaalkan soo gaaray anfici kartaa marka hore muuqaalkan aad daawanayso inta aadan hadal kale ama dhageysta kale aadan galin muuqaalkan share garay walaalaha kale u share garay hadaadan wax haysan waxa kaga qayb qaadan kartaa inaad share garayso walaalaha kale aad gaarsiiso Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay man ahya an-nas fa ka'annama ahya an-nas jamii'a qof muslima nooleeyo waxay ka fadli badan tahay isagoo dadkoo dhan nooleeyay la mid tahay sida awgeed waan aragnaa masjidada la dhisaayo meelaha kale wax walba oo maanta sadaqa jaari ah qayb bay ka tahay arintan wadana way ka sii daran tahay ummadan baa ay dhibaatoonayso insha Allah ta'ala waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka barayaa اللهم إنا نسألك رزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا عن البراء سابرا اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شيارنا اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم إنا نسألك رزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البراء سابرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته